dhalinyaro Soomaaliyeed oo wajigu u duuban yahay oo dawajacay aakiyaal wata oo waa banaan baxayna dhahaya maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay waxay ka soo horjeedaan go'aankii dawladda Soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan anaga dalkeena lagu haysta ee Soomaalidii inta kala qayb mar u yeeranaya in dawladdu ay go'aan ka gaartaa dhibaysa dawladda Soomaaliya tabareer waa jirto laakiin dameer adag ayaa jira go'aan ay ka qaadatay kaasoo ay dawladda Kenya ugu jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed shalay maxaa ku xigay mar haddii dadkeennii uu noqday dad ducafo ah oo aan dameer adag lahayn oo u jilicsan cadowga kuwo annaga naga mid ah oo ayagu ay leeyihiin ayaa maantaba rabshado bilaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wajigu u duuban yahay oo dawajacay aakiyaal wata oo waa banaan baxayna dhahaya maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay waxay ka soo horjeedaan go'aankii dawladda Soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan anaga dalkeena lagu haysta ee Soomaalidii inta kala qayb mar u yeeranaya in dawladdu ay go'aan ka gaartaa dhibaysa mashaakilaadka noocaas ah wuxuu sababay oo maanta indhayga ku arkay bila ka hor laamigii aan dhisnay oo maanta taayiro lagu goomaya lagu gubayo oo laamigii uu dhalaalayo laami haddii dab lagu gubo maxaa imaanaya waa dhalaalayaa laamigii uu dhalaalaa oo taayiro lagu gubayo maantay indhahaygaan ku arkay waxaan wadnaa dhammaan waddooyinkii in la dhiso aan marno oo aan helno waddooyin nadiif ah oo aan biyo fadhin oo aan wasaq ahayn meesha u socono waa halkaas cabsida aan qabo inkastoo aan uga mahad celinay bulshada Soomaaliyeed oo intooda badan ayan raacin khaladaadka oo ay aad u fahmeen dantooda haddana weli waxaa jira kuwo aan garan waxa dantoodu tahay muhiimadda dalkooda uu leeyahay wadaniyadda looga baahan yahay oo iyo xagga dalku ku leeyahay kuwo aan garan oo weli lagu sii adeeganayo ayaa jira sidaad adinkuba arkaysay cabsida aan qabo waxay tahay waddada aad codsateen in la idiin dhiso oo hadda dhismaheedu uu socdo adinkoo u jeeda qaar yar oo khayr beelayaal ay taayeero ku shidaan lagu baabuur inay ku shidaan oo waddadii haddana ay burburto cabsida qabo waa midaas siyaasadda si fiican dhagaysta waa isjiijiid badan tahay siyaasad qori ah waa laga yimid siyaasad qalin ah oo qofku intuu xariiqo qofka uu magaciisa sanduuq lagu ridahay noo joogta waqtigeedina ma foga haddii aadan ku kalsoonayn in dadku ay ku doortaan يعني إن سكلة مشاكل كلا لا أبورو وعمد قلبك أمد الصومالي جبنيس
waxaa loo baahan yahay doorashada iyo sanduuqa in la sugo loo dul qaato si xasilooni ah qof walba oo codkiisa ku dhiibto qofkii codkaas hela oo ah qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed inay la shaqayso qof taqaana male qofta ilaahay keeni doono ma kan hadda jooga ma mid kala laakiin iyo fawdada qolaan oo dhibaato hadda la curiyay iyo qax iyo barakax lagu bootayn midaas waaye midda loo baahan yahay waa midaas midda la rabo shacabkaanu inuu oo muujiyo dareenkiisa ku aadan iyo sida uu diiday haddii mid wax qarribaya oo gurigaaga gubaya oo dantii gubaya uu yimaado oo aadan ka celinayn oo aadan waxu yahay dhehina iska fiirsanaysid maxaa imaanaya inta meerleewayaashu ayna xukumaan sidii doono ay naga yeelaan oo meesha laga yimid ay noo naqaana imaanaysa walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool in wax loo qabto oo la horumariyo waxay ku imaan kartaa in dantooda guud laga shaqeeyo qof in loo quudiyo ama wax loo siiyo maanta waxaad siiso yani lama suura gelin karo dadkuna maantay waa dad wadana yar oo aan nolol ku filan haysan oo jireen laakiin maantay maalmihii la soo dhaafay waa la dhaama waxa loo baahan yahay waxay tahay yani nabad waxa loo baahan yahay nolol waxa loo baahan yahay horumar waxa loo baahan yahay dib u dhis intaas marka la helo ayay kuwa nolosha hadda haystaana noloshooda ay kobci kartaa kuwa noloshooda ay liidatana ay heli karaan shaqo ay heli karaan waxaa la rabaa bulshadu inay dareenkooda sheegaan ay wixii horumar ah iyo dadaala ay garab istaagaan wixii horumarka ka hor imaanaya dib u celinayana ay diidaana laga raba waa waqti dambo mar rabo inaan waqtigan kadib aan idinku sii daaya halkaan haddaaba la dahay waxaa la rabaa wixii bulshada horumar u ah oo dantooda ka dhaxeeya in la isu garabsado wado haddii la yidhaahdo waa wax kulligood nacfigeeda la wada helayo haddii la yidhaahdo iskuul waa wax manfaciisa la wada helayo isbitaal haddii la yidhaahdo sidoo kale MCH haddii la yidhaahdo sidoo kale masaajid haddii la yidhaahdo sidoo kale waxyaabahaas la wada leeyahay ayaan anagu mas'uuliyad gaara iska saaraynaa dhismaheeda haddii se la yidhaahdo dadkan qofa loo quudiyo is-aadays iyo hebela loo badiyey iyo ma dhammaanayso waxay kaloo oo aan dhammaanayn baahideeda maanta haddaa qofku haysiiso oo maanta kaa quudi beri haddana waa gaajaysan yahay laakiin laamigaa maanta dhisto berri sidiisii waay haddii aan mid khayr beela oo kaa dumin oo uusan kaa shidin aan isku raacno aan isu garabsanno wixii danteenna ah
wixii horumarka ah wixii bulshadan ka bi'i kara jahliga ka bi'i kara bukaanka ka bi'i kara burburka iyo baaba intaas ayaan rabay inaan idin iraahdo wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.